dadka shaydaamaha caabudo waa dadka ugu taajirsan adduunka. kolley haddaan shaydaan caabudo waxaan u maleynaa aniga horta qof kale shaqsigiisa kama hadli karo, naftayda ayaan ka hadli karaa, ahaani doonaa ilaa aan ka dhimanayo. ma fahamtay? kalama harayno ani adiga. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتين هون السلام تعبتي الشرفت له محي هذي واني واصمها خليل وحني ليها رمضان كريم. رمضان كده حبرتكم مريا ما شاء الله. عاد أيام أروح ما يصير فض ونوع عرايو. وحن ما أنتو أصو قال لي ماشان إن كه الله وحير. ولايك أدي أنا أركن إنه مهم يهاي إن لقاه الله. مين أيا maalmahan dhan like aniga iyo laba wiil oo kale la hadalhaye, waliba anigu ahaa marka hore, kadibna laba wiil oo kale ku soo daray oo igu dhahay inaa aniga ahay qolooyinka illuminaatiga oo micnaha shaydaanka ayaan caabudaa camal, inaan aniga shaydaan caabuda camal. horta marka hore wax la imaanaysa maxaa fiican wax laga aqbali karo ama aad isleedahay dadku way ku rumaysanayaan inaan la imaatid. qof islaam ah oo islaamnimo lagu dhalay oo dad islaama dhaleen oo dad islaama koriyeen, fahamtay, oo islaamnimo lagu barbaariyey, ku weynaaday, rabana mustaqbal haddii la gaaro qof islaam inuu guursado ilmo islaama dhalo, horta waa laga qurux badnaa inaad aadid shaydaan waaye. haddii ay aad islaheedna xoogaa ama macnaha la imow something wax different ah, something different oo aad isdhihi kartid dadka ha ku aaminaan ama views ku raadso, waa laga qurux badnaa walaalo qaali inaad waxan la imaatid, because qof oo waxaa lagu leeyahay bartaa ku tumanaya ama wax diinta islaamka ka baxsan sameynaya, haddana kula sheeganaya laa ilaaha ila allah ayaad ku tilmaami karin adoo arkaya waxa uu sameynayo like wax diinta islaamkaba totally ka baxsan inay tahay, oo haddii la qabto kow inaad ka siisid ma ogiye oo aad jannada ku tagaysay ayaa lagu leeyahay laa ilaaha ila allah haddii uu kula leeyahay ma dhihi kartid waa gaal. iska daa qof asturan oo xijaaban oo maanta dhan quraan akhrinaya oo maxay ahaydee diinta islaamka hortaagan oo diinta islaamka u dagaalamaya, u hadlaya wax wanaagsan ma ogi wax xun afkiisa laga keenin, dad caynin, dad ku dhaganayn, samaada fahmin. marka qofkaasaaba dhihi karinba waa gaal muwadaca kan, ma fahamtay, oo aad ku naargalaysaa. marka walaalo waxaa ila qurux badneed inaad wax kale oo different la imaatid ama waxyaabo kale ani igu tilmaamtid, intaad gaalnimo igu tilmaami lahayd ama shaydaan igu tilmaami lahayd. waxaadna tiri cadeen ayaan rabaa inaan keeno inay shaydaamaha illuminatic macnahooda ma taqaantaa? I wish you could know inaa macnahaas aad taqaanta shaydaanka la caabudayo. dadka shaydaamaha caabudo waa dadka ugu taajirsan adduunka. kow waa dadka ugu xun. Are you getting me? kolley haddaan shaydaan caabudo waxaan u maleynaa waxyaabo badan ayaa lagu arki lahaa, ay tahay inaan farmaajo kursigiisa kula dagaalamo kale ya farmaajo kale inaan kursiga kula qabsado, maanta ku riyoodo aan noqdo gabadha madaxweynaha keliya ee Soomaaliya ka noqotay. walaalo waxay ka tahay maxay ahaydey qofkan macnaha ku caanbax gabadhan. aniga horta qof kale shaqsigiisa kama hadli karo, naftayda ayaan ka hadli karaa, taasoo tahay inaan qof islaam ahay, ahaani doonaa ilaa aan ka dhimanayo. ma fahamtay? waana laga qurux badnaa inaan waxaasoo kale la imaatid. waana bil Ramadaan waliba waqtiga lagu jiro. waxaadna tiri waxaan rabaa inaan keeno cadaynaysa dadkaas inay shaydaamaha yihiin. walaalo aniga dadka kale waxba igama gelin, laakiin nafteydan ka hadlaya. waxaan ku leeyahay ii keen, haddii aad ii keentid aniga oo leh aniga shaydaan ayaan caabudaa oo shaydaamad baan ahay, dee markaas ayaan arkaynaa. ma fahamtay? marka waxyaabo lagu kaftamaa jiro
tanina kaftan ma gasho adiga kaftan haddaad ka dhigatay adigoo weliba isku tilmaamaya nin sheekha kolley sheekh saan uma dhaqmayn saan arkayo laakiin haddii aad keeni weysid oo waxaan ay ka ahayd just for fun like qofkan ku meel gaar ama ku caanbax ay ka ahayd magacaaga hala ahaayo waxaa inoo balana maalinta yawmul qiyaamo anigii adiga dad kale ma rabo inaan ka hadlo but for me anigoo islaam ahna aad gaal ugu tilmaamtay waxaan rabaa maalinta yawmul qiyaamo inaan anigii adiga wada hadalno waa bil ramadaan waana soomanahay maanta waxaana rabaa kalama harayno ani adiga lagamana yaabo maanta ay tahay bil ramadaan oo weliba aniga aan soomanahay ma laga yaabo inaan ku cafiyo insha allahu tacaala xataa haddii aad inta soo fadhiisatay tiraada in la cafiyaan rabaa insha allahu tacaala waa iga wallaahi oo iga billaahi oo iga tallaahi ah inaanan ku cafinayn waxaana inoo balana maalinta yawmul qiyaamo kala baxa dadka la kala saarayo aniga adigii ilaahay ya waxaan ku leeyahay sharta iyo waxa xun oo aniga ii niyeysanaysid waxaan ilaahay ka baryay inaad adiga heshid waxaana ka shakisanahay inaad waxaas adigaba tahay waxa xun oo aad anaga noo niyeysanaysidna aniga labada wiilba waxaan ilaahay ka baryay inaad horteeda ka heshid waa maalin ramadaan sidaan hore u sheegay walaalo anigu kuma caynayo kumana dhahayo wax adiga anna maanta problem u keeni kara ramadaankayga maxay ahaydey iyo soonta aan soomanahay ama adiga ku gubi doono markaad videogan fiirsatid aad dhihi doontid gabadha maxay saa ku tiri waxaan ku leeyahay waxaasoo dad ah oo social media ku jira intaad fiirisay ayaa anoo gabara weliba iga soo baxsatay oo tiri qolooyinka isha shaydaamaha ayay caabudaa waxaan ku leeyahay aniga iyo adiga waa iga wallaahi oo iga billaahi oo iga tallaahi waan soomanahay waxaa inoo balana maalinta yawmul qiyaamo lagamana yaabo inaan ku cafiyo samaadan fahmin ma laga yaabo inaan ku cafiyo waana ogahay inaad kaftamaysid oo aad rabtid bas inaad caan ku noqotid laakiin noloshaydii weligay ma jeclaan inaan qof qalbigayga ku hayo ama aan wax xumaana u niyeysto bat adiga waxaa inoo badana maalinta yawmul qiyaamo halkaasaan ku wada xisaabtamaynaa waxaan ku leeyahay waxaan aad wadid oo aad buunbuuninaysid iyo xumaantadana inaad iska daysid iyo weliba dhalinyarada kalood ku dhegan tahay anigana soo ma aha waxaad ugu sheegaysid la keen la imow caddeynta la imow I want to see myself waxyaabaha aan sheegayo shaydaan baan caabudaa anigoo samiixa qaliilah anoo dhahaya haddaad i keentid markaasaan wada hadlayna ani adiga haddana kolley sidaad rabtay waad heshay inaad caan noqotid oo lagu wadwado baad rabtay laakiin tani waa tu loo kala haraynin samaad fahmin marka walaal waxaan ku leeyahay ramadaan kariim ramadaan wanaagsan horuu soco keep going maade ilaa naarta ma fahamti shaqayso dadka soo badi shalay keligeeba ahaa maanta labaad kusoo dartay bari 3 4 5 kusoo dar inaan kusoo jawaabana diyaar uma ahayn sababta ama u qalantidba inaan ku jawaabo laakiin waxaan maanta halkan la soo fadhiistay oo igu kalifay inaan ka hadlo waxay tahay inaan ku dhaho bas soo hadal walaalo ina keen haddaad keeni weysidna ani iyo adiga maalinta yawmul qiyaamo waa ramadaan wallaahi oo billaahi oo tallahi inaanan ka noqonayn السلام صلى الله عليك إلهك بركة